bulshada ku nool gobolka Mudug ee bartamaha dalka ayaa soo dhaweeyay qorshaha dhismaha dekedda magaalada xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug ee bartamaha dalka kaas oo sanado badan soo jiitamayay laakiin iminka u muuqda mid maraya meel gabagaba ah. dhismaha iyo maalgashiga dekedda magaalada xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug oo sanado badan soo maray ayaa iminka waxa uu istaagay ganacsatada u dhalatay deegaanada dowlad goboleedka Galmudug kuwaas oo hadda maalgashi dhisme ku sameynaya dekedda magaalada xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug si lagu adeego bulshada Soomaaliyeed qaybna uga noqoto kaabayaasha dhaqaale ee qaranka iyo ganacsatada xoogga iyo juhdiga badan gelisay dekedda magaalada Hobyo oo ah deked qadiimi ah oo dalka iyo dadkaba macno weyn u leh iyo gobolka geeska Afrikaba aan isleenahay haddii dekeddaasi ay hirgasho wax weyn bay ku soo kordhinaysaa waa hididiilo fiican oo rajo leh oo aan sidii hore oo naloo sheegi jiray si ka bedelan noo farxad iyo dhiiri gelisay weeye dekeddaasi shalay la xargi jaray waa soo dhaweynaynaa waa u hambalyeynaa ganacsatada Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada Galmudug oo maal gashatay meeshaas waxaan leenahay hantidiina iyo xooggiina iyo maskaxdiina iyo muruqiina Allah barakeeyo waana ogeyn in dekeddan aan dawlad dhisayna dadka marka hore ay ka timaado ganacsatada ay ka timaado dhisitaankeedu waa rajada aan qabnay ahayd. bismillaahir rahmaanir rahiim anoo yaa magacay Cabdirasaaq Garbeysal ku nool magaalada Gaalkacyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay saxiixii ugu dambeeyay oo shalay dekedda Hobyo loo sameeyay runtii waxaan dhahi karnaa bulshada gobolka ku nool iyo reer Galmudug dhamaantood waa farxad ay sugahayeen waa dareen weyn oo ay ku dhan wada galay faa'iidooyinka ay noo leedahay dekeddeena in loo dhiso runtii waxaan dhihi karaa bulsho badan iyo dhalinyaro badan oo tahriib iyo meelo kale ka fakarahayay maanta waxay u fakarahayaan dekedda Hobyo sidii looga shaqeyn lahaa sidii horumarkeeda maaragtay loo wadi lahaa sidii bulsho badan oo dagaalo iyo colaado iyo maaragtay waxyaabahan daashadeen ay uga qayb qaadan lahaayeen nacfina u heli lahaayeen anoo kamid ah bulshada Gaalkacyood waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa heshiiskii shalay ama saxiixii shalay lagu shaqeeyay magaalada Muqdisho kaas oo ahaa dhismaha dekedda Hobyo oo in badan haddaan nahay reer Galmudug ama nahay reer Mudug aan aad ugu taameynay marka mashruucaas insha Allah hadduu hirgalo waxaan rajaynaynaa in horumar badan uu deegaanka ku soo kordho iyo Soomaaliya kale sidoo kale amniga inay qayb ka qaadato oo bulshadu ay ka faa'iideysto maadaama ay reer Galmudug aad ugu baahan yihiin inay helaan deked